maxay maadada fluorine mugga jirka iyo khatarihiisa? Waa maxay maadada fluorine ee jirka? Maadadan fluorine waxaa laga helaa oo ay dhex qooshan tahay lafaha, gaar ahaan ilkaha. Munaafacaadka maadadan fluorine ay dheecaamada lafaha u hayso waxaa daboolay ama ka badan khataraha iyo saameynta ay u keenayso lafaha, gaar ahaan ilkaha markay ku badato jirka. Shaqada fluorine waxaa adag oo dhif ah in la helo qof ilkaha dabar ku leh, haddana ilkihiisu suus dartiis ay la madoobaadeen ama la daateen. Maadadan fluorine waxay xambaarsan tahay lakabyo aashito ah oo ay la socoto maadada kale ee hydroxyapatite, kuwaas oo ka ilaaliya ilkaha suuska iyo aashitada ay bakteeriyadu ku daadiso ilkaha si ilkuhu ay ku bololaan. Maadadan fluorine waxay siisaa ilkaha adayg iyo cimri dheeri. Ilaha laga helo fluorine. Isha ugu muhiimsan ee laga helo fluorine-ka waa biyaha cad oo adag ama jaanka ah oo dhanaan xigeenka ah. Mugga aad u baahan tahay maalintii. Mugga fluorine ee aad u baahan tahay maalintii waxay ku xiran tahay mugga aad ka cabtid biyaha, gaar ahaan biyaha culus oo dhanaan xigeenka ah. Xanuunka uu keeno. Saan horay inkugu soo xusnay, munaafacaadka maadadan fluorine ay dheecaamada lafaha u hayso waxaa daboolay ama ka badan khataraha iyo saameynta ay u keenayso lafaha, gaar ahaan ilkaha. Qaadashada in ka badan 5 ppm oo u dhiganta 5 mg oo maadadan fluorine ah waxay kuu horseedaysaa waxa loogu yeero fluorosis, oo ah dabarka fuula ilkaha ama dabarka madow xigeenka ah. Sidoo kale, cabidda biyaha dhanaan ama adag oo ay dhex qooshan tahay maadadan fluorine waxay sun ku tahay lafaha iyo isgoysyada lafaha, iyadoo ka dhuuqaysa xuubkida iyo inay adkayso carcow kasta oo u dhexeeya isgoysyada lafaha. Sidoo kale, maadadan fluorine oo ku badata jirka waxay sababtaa gacan fudaydka iyo waallida fudud oo ilowsho xad dhaaf ahi ay ku jirto.